Bismillahi Rahmaani Rahiim. Waxaan halkan ka gelaynaa maadada fiisigiska imtixaankii wasaaradda 2024 ilaa 2025. Qaybta koowaad oo ah su'aalaha doorashada ah ayaan halkan kusoo bandhigaynaa. Waaya, su-aasha koowaad maxaa la yidhi? The branch of physics that deals with the motion and the force is called. Qaybta ka mid ah fiisigiska oo ka hadasha socodka iyo xoogga waxaa lagu magacaabaa optics, mechanics, atomic, electromagnetism. Waxaa lagu magacaabaa mechanics. Foomanka lagu soo qaataa mechanics waa. Magnetic field lines bedadka birlabka originated from waxay ka imaadaan east, south, north, west. Waxay ka imaadaan from south ayay ka imaadaan. From south to north waaye. South ayay ka imaadaan. Su-aasha saddexaad maxaa la yidhi? In which of the following diagram shows P and Q are series and with each other and parallel with R? Sawiradan soo socda keebaa B iyo Q ay yihiin series, R-na ay la tahay parallel. B iyo Q series kana yihiin. Series waxaa waaye sawir taxane isku xiran leedahay. Parallelna R-tuna waa parallel waa rid socotaa. Marka sidaa darteed number A ayaan dooranaynaa. Su-aasha afraad maxaa la yidhi? The period of the simple harmonic motion depends on waxay ku xiran tahay length, mass, acceleration, mass of vibrating body. Number D ayaan dooranaynaa oo mass of vibrating body ah. Su-aasha shanaad maxaa la yidhi? The figure below sawirkan waa iska muuqda shows wuxuu muujinaa the journey made by the car. Socod uu sameeyey gaari. Waxaa lagu dhahaa at what interval keebaa the velocity will be the constant. Interval keebaa socodka uu noqonayaa mid joogto ah. Intervaladu waxaa waaye 0 ilaa 10, 10 ilaa 20, 20 ilaa 30, 30 ilaa 40. Fiir marka 0 ka kacay socodka kor u aado xawaaruhu kor u kacay ilaa halkaas uu tegay. Halkaan buu tagay ilaa L intuu dhexaysa isbeddel kuma dhicin. Marka meesha isbeddelku uusan ka jirin waa L ilaa K intuu dhexaysa L ilaa K. Waa kana marka K and L waa B. Number B K and L intuu dhexaysa isbeddel kama dhicin aan leenahay. Waxaa lagu dhahaa number 6 which quantity measures the figure below. Sawirkan waa iska muuqda maxaa lagu cabiraa? Sawirkan waa thermometer. Waxaa lagu cabiraa temperature-kan lagu cabiraa. Temperature ayaa lagu cabiraa. Thermometer waa temperature-kan lagu cabiraa. Waaya hoos u soco. Su-aasha toddobaad waxaa la yidhi device used for measuring potential difference. Aaladda loo isticmaalo in lagu cabiro farqeydka danabka oo voltage-ka is known as waxaa lagu magacaabaa ammeter, voltmeter, ohmmeter, galvanometer. Voltmeter aa lagu cabiraa potential difference oo volt ah. Voltmeter aa lagu cabiraa. Waayahay. Waxaan leenahay sawirka sideedaad. Su-aasha sideedaad maxay leedahay? According to the wave property marka loo fiiriyo astaamaha wave which property show the figure below. Sawirkan waa iska muuqda. Sawirkan waa iska muuqda astaantee u muujinaya. Meeshan waxaa yaala shay oo holac ka baxayo. Meeshan waxaa yaala saddex derbi oo daloola leh. Marka iftiinkaas daloolahan uu ka baxayo maadaama daloolkan hoolkan uu ka baxayo waxaa la yidhaha reflection, refraction, diffraction, rectilinear propagation. Rectilinear propagation waa marka rectilinear propagation. Baahida tooska ah waa. Su-aasha xigta sagaalaad waxaan leenahay two team from Somali Republic School are playing tag war. Waxaa soo heshaa liwidmuga resultant force by using in the figure below. Marka halkaan se dareemi kartid teamkan waa 300 newton xooggoor teamkan waa 300 newton maadaama xoogga uu isku mid yahay waa iskansal garaynaa 0 waa soo baxaysa kalama awood badno. Meeshaan 600 oo naqanaa 300 oo naqanaa 0.7 naqa waxaas 0 baa sax ka ah midaan C ah sax ka oo 0 ah. Waaya. Resultant force waa iskansal garaynaa 0 baana soo baxaysa. Su-aasha tobnaad
maxaan leenahay which method for heat transfer occurs in the vacuum meel maran marka la joogo heatku qaabka u gudbiyaa conduction isla conductionka soo laabata radiation iyo induction radiation iyo induction radiation iyo induction wuxuu u gudbiyaa radiation ahaan u gudbiyaa radiation ahaan ayuu u gudbiyaa su-aasha 11aad in the early morning subax xilliga hore the sun can cause the building to form shadow qoraxda dhismooyinka hoos ayay ka samaysaa this shadow appears waxa u muuqanaya marka subax hore hooska waxa u muuqanaya mid dheer mid cayilan mid caataa mid gaaban mid dheer waa subaxa dhismooyinka hooska hore aad u dheerdheer yahay su-aasha 12 in the figure below pendulum with different string waxaa yaala walhade xarko kala duwan ku xiran each pendulum is pulled to the side and are released mid walba oo kamid a waxaa la riixay dhinaca loo riixay hal maraa lasii deeyna waxaa lagu dhaha marka which of the following pendulum oscillate with the lowest frequency keeba ugu soo noqosho yahay pendulumkan wuxuu aadayaa hore gadaal u aadaya soo ma mid keeba ugu soo noqosho yar midka ugu dheera ugu soo noqosho yar sababtoo ah frequency wuxuu inverse proportional ku yahay waxa loo yaqaano lengthiga dhirirka marka waxaa waaye number a xariga ee midka wata aa lowest frequency ah number 13 waxaan leenahay third law of Newton xeerka saddexaad ee Newton is known as waxaa lagu magacaabaa law of inertia law of acceleration law of action and reaction law of weight law of action and reaction aa lagu magacaabaa law of inertia xeerka koobaad waa kan xeerka labaad xeerka saddexaad kana ah waaya su-aasha 14 su-aasha 14 waxay u dhacaysaa sida tan in the figure below shows one of the following motion sawirkan hoos ka muuqda wuxuu muujinayaa mid ka mid a socdada linear motion projectile motion circular motion oscillator motion projectile motion ayuu muujinayaa projectile motion ayuu muujinayaa 15 waxaa la yidhi quantity of heat energy is given by waxaa lagu helaa qaacidadan kulli waa isku mid middaa rabtid dooro ma kala duwano kullina waa sax haye su-aasha 16 the diagram below the amplitude the wave in centimeter is equivalent to waxay u dhigantaa sawirkan hoos ka muuqata qotonka hirka amba joogga sare u gaari kariyo sentimitir ahaan waxay u dhigantaa 1 sentimitir 2 sentimitir 3 sentimitir 4 sentimitir fiiri joogga hore wuxuu gaaray 4 sentimitir uu gaaray 4 sentimitir ayuu gaaray amplitude waxaa loo yaqaanaa halkaa ka soo bilow ilaa halkaas keena loo yaqaan amplitude marka 4 sentimitir maadaama uu gaaray waa number d waayahay su-aasha 17 which of the following materials waxyaabahan soo socda midkee allows ogolaanaya light to pass through it inuu ila isku dhex mariyo cover wood glass rubber ilaasku wuxuu dhex mariyaa sida caadiga oo la yaqaanaa oo u fudud glass haye su-aasha 18 the frequency of simple harmonic motion is given by the frequency simple harmonic motion qaacidaan waxaa lagu helaa intaan midda e ah saxa number a ayaa saxa waxaa lagu helaa 1/2 by square root k of m aa lagu helaa waayahay su-aasha 19 the in the following shapes represented the same brick place in different ways shapebkan soo socda waxay u taagan yihiin lagu dhahay blockade loo dhigay qaab kala duwan which case has its least pressure kiisaskan kala duwanoo loo dhigay midkee ugu cadaadis yar a iyo b iyo c marka cadaadisku waxaan naqaanaa waxuu inverse proportional ku yahay to the area marka midka ugu areada weyn ugu cadaadis yar kan qaabka u yaal midkaana areada u weyn ku fadhiyo maadaama area u weyn uu ku fadhiya marka cadaadiska u yar kan ayaa iska leh cadaadiska u yar kan ayaa iska leh waaya su-aasha 20aad the characteristics of the sound
which helps us to distinguish between women's force and men's force. Astaamaha aan ku kala garan karno ninka iyo dumarka, ragga iyo dumarka lagu kala garan karo codkooda without seeing them, adoon arkin iyaga naftirkooda. Adoon qofkii arag sababta codkooda aad ku kala garan kartid. Hadduu nin hadlayo iyo hadduu qof dumar hadasho waa taqaanaa. Sababta aad ku kala garanaysid waxaa la yidhaahdaa intensity, loudness, quality, pitch. Waxaa la yidhaahdaa pitch. Pitch ayaa la yidhaahdaa. Haddaan horuu sii soconno, su-aasha 21aad. The microphone of Miscue is set up to record and display sounds of prayer. Microphone ku xiran masaajidka wuxuu soo bandhigaa codka salaada markii lagu guda jiro made by loudspeaker. Marka su-aasha la weydiiyey maxay tahay marka? Which one of the following sound is louder? Keebaa cod dheer? Sawiradan keebaa cod dheer? Marka waxaa waaye midka long wavelength ah ayaa louder ah, midka ugu hirbaaca u dheer ayaa ah midka ugu louderka ah. Marka maadaama midkan hirbaaciisu aad u dheer yahay, louderka number D waaye leenahay. Number D ayaan leenahay. Number D ayaan dooranaynaa. Waaye su-aasha 22aad. The angle between two plane mirror xagal u dhexaysa laba maraayadood is 6 degree waaye. If an object is placed between them, the number of image formed will be. Haddii shay intixtaarka hore la dhigo, imageka samaysmi doona, tirada image samaysmi doona waxay noqonaysaa imagekaas waxay noqonaysaa 6, 5, 4, 3. 5 image ayaa samaysmaysa. 5 image ayaa samaysmaysa. Waxaa isticmaalaysaa qaacidadii ahaday. Waxaa isticmaalaysaa 360 degree. 360 degree oo la hoos dhigay n 360 degree oo la hoos dhigay n laga jaray hal ayaa isticmaalaya. 360 degree oo la hoos dhigay n laga jara hal. Marka 360 degree marka loo qaybiyo 60, 6 soo bixi halka guy 5 ayay noqonaysaa. Sidaas ayay ku imaanaysaa. Sidaas ayay ku soo baxaysaa. Waaye horuu soconno marka. The image formed by plane mirror, imageka ay samaynayso plane mirror waxaa waaye number A, real, erect, virtual and inverted. Virtual, erect, real and magnification. Waxay samaynaysaa number C. Plane mirror waxay samaysaa virtual image oo ah erect ayay samaysaa. Waayahay su-aasha 22aad. Waxaa lagu yidhi battery 202 volti ah ayaa waxaa lagu xiraa laambad ka muuqata sawirkan hoose. Current-iga meeshaas maraya wuxuu noqonayaa current-iga halkaas maraya wuxuu noqonayaa 220 volt, 176 volt, 275 volt, 220.8 volt. Number 8 ayuu noqonayaa. Number C uu noqonaa oo ah sababta current I waxaa lagu helaa I oo current ah waxaa lagu helaa V oo la hoos dhigay R. V oo la hoos dhigay R ayaa lagu helaa. Marka haddii aad isu qaybisid 200
haddii aad soo qaybisid 220 loo qaybiyo 0.8 waxaa soo baxaysa 275 275 soo baxaysa su-aasha 25aad waxaa la yidhi the principle of formation of image in lens is reflection of light, refraction, dispersion, scattering. Marka xeerka uu ku samaysmaayo image lenseska ku samaysmaayo ma reflection weli jooga mise refraction mise dispersion waa refraction ila isqalloocan weli joogo ayuu xeerkaasu ka dhex shaqeeyaa halka ayaa laga helayaa su-aasha 26aad maxaa la yidhi haddii aad istaagtid maraayad special horteed waxaad arkaysaa image oo madaxaaga sawirka madaxaaga inuu weyn yahay normalka uu ku weyn yahay qaybta dhexane ay tahay same size caadi iska tahay lugahane ay ka yar yihiin normal ay ka yar yihiin special mirror maradaas khaaska oo sawiradaas kala duwan samaynaysa oo saddexdaas nooco kala duwan samaynaysa waxay noqonaysaa plane concave iyo convex maya concave plane convex waxay noqonaysaa convex plane concave waxay noqonaysaa plane convex concave jawaabta saxda ah waa number b marka jawaabta saxda ah maxaa waa number b waaye number b waaye su-aasha 27aad waxaa la yidhi a cool abuse dark when view with white light because it calena marka because it waxaa la gelaya reflection disperse refraction observe dhuxusha waxay u muuqataa la yidhi madow markii white light ilayska caddaanka ah lagu iftiimiyo maxaa yeelay it absorb reflect disperse refraction ereg absorb waxa waaye absorb waxay nuugaysaa bay jaqaysaa all light falls on them ilayska ku dhacay ay wada qabsanaysaa marka refraction wax soo celi mayso dib wax soo celi mayso reflection ma jiraayo refraction ma jiraayo numberka 28 stars xidigaha abiris waxay u muuqanayaan twinkle due to refraction diffraction interference iyo reflection ay waa refraction marka refraction atmospheric layerska ayaa waxay samaynayaan refraction 29 waxaa waaye the seven color obtained in the screen when the white light passing through the prism is known as colorka white lightka marka prism lagu iftiinsho 7 nooc uu kala jabiyaa todobadaas waxaa lagu magacaabaa scattering refraction spectrum dispersion lagu magacaabaa midkee saxda ah waxaa waaye spectrum maa lagu magacaabaa jeegaan spectrum ayaa lagu magacaabaa su-aasha waxaan leenahay 30aad calculate waxaa xisaabinaysaa equivalent capacitor as shown in the figure below equivalent capacitor waxaa lagu helaa 1 over c plus 1 over c1 plus 1 over c2 aa lagu helaa marka c1 waa 4 c2 na waa 4 rogaala u qori waan isku diri dan kadib waa ka shaqaynaysaa waxaa soo baxaya 2.4 oo number b ah 2.4 oo number b ah waayahay su-aasha 61aad in real life Faraday's law can apply in many devices which of the following is an application of it nolosha Faraday's law applicationska nolosha meelo badanaa lagu dabaqaa lagu yidhi marka waxyaabahan sida kee Faraday's law ah electric bulb watches televisions tablettes ka mid ahay qodobkan ayaa ka mid ahay number d y 32 maximum voltage circuit is 6 using theta is equal 30 degree its instantaneous voltage will be wuxuu noqon doonayaa marka maximum ama peak voltage lagu siiyey theta waa lagu siiyey instantaneous voltage wuxuu noqon doonayaa 40 50 30
60 soddon ayuu noqonayaa soddon ayuu noqonayaa number C ayaa sax noqonaysa peak voltage waxaa lagu helaa instantaneous voltage oo lagu dhiftay sin theta peak voltage waxaa lagu helaa instantaneous voltage oo lagu dhiftay sin theta lagu helaa sin theta lagu helaa instantaneous voltage iyo sin theta waa tanaa marka haddii la isku shaqo waxaa soo baxaysa C ayaa soo baxaysa C ayaa soo baxaysa waayahay numberka ku xiga waayahay numberka 33aad maxaa la yidhahay 33 waxaa la yidhahay the basic element in DC is resistor wire AC the three basic element saddex wuxuu leeyahay basic elements ah oo saddex resistor uu leeyahay oo kala duwan number A resistor inductor iyo capacitor voltage diode capacitor transistor diode resistor diode inductor resistor number A waaye number A waaye number A waaye waa resistor iyo inductor iyo capacitor number A waaye su-aasha xigtool 34aad the below figure represent wuxuu u taagan yahay wuxuu u taagan yahay A wuxuu u taagan yahay A engage wuxuu u taagan yahay engage wuxuu u taagan yahay engage or gate not gate iyo nor gate wuxuu u taagan yahay engage engage u taagan yahay oo labadaba ah waayahay 35 waxaa la yidhi the two most frequent used material for electronics waxay yihiin labada elementyo ugu badan oo electronic loo isticmaalo waa number C waa germanium iyo silicon semiconductorskan kula joogo germanium iyo silicon waa su-aasha 36aad which of the following electromagnetic spectrum is particularly more hazardous keeba ugu khatar badan electromagnetic spectrumkan soo socda x-ray gamma ray infrared x-ray ultraviolet number A waa gamma ray ugu khatar badan gamma ray ayaa ugu khatar badan numberka 33aad 33 waxaa la yidhi the different element having the same mass number but different atomic number is called elementyal kala duwan oo mass numberka isaga midka haddii la arko waxaa loo yaqaanaa isobara lagu magacaabaa iston ma ahan istobisna ma ahan marka isobaris waaye number A waa number A waaye number A 38 qoryahan falgalkan ayuu sameeyey helium uu sii daayey plus energy uu sii daayey this equation represents waxay u taagan tahay radioactivity emission of alpha particles beta particles gamma particles theta angle particles theta particles u taagan tahay theta particles marba haddii helium plus energy la sii daayo waxaa loo yaqaanaa alpha particles aa la yidhahdaa alpha particles aa la yidhahdaa alpha particles waayahay 39 which type of radiation is stopped by sheet paper haye midkeebaa kaaha ay joojin kartaa warqadda waxay joojin kartaa alpha particles kuwa kale ka xoogan yihiin alpha particles su-aasha afaraad maxaa la yidhi for every 1 degree Celsius rise in temperature the speed of sound in air is increased by waxaa kordhaya 0.6 meter per second qaacidada ku jira maano qaacidada ku soo qaadan sound wave
0.6 متر per second 0.5 maaha 0.2 maaha 0.1 maaha muxuu ahaa 0.6 afartankii su'aalood ugu horeysa ayaan halkaas kusoo gudbinaynaa wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu